بسم الله الرحمن الرحيم warbixinteenan maanta ay waxaynu diiradda ku saaraysaa Iiraan oo weli dhegaha ka furaysanaysa hanjabaadaha Mareykanka Israa'iil iyada oo mar kale sheegtay inay suuragal tahay inay sii wado dagaalka mid ka sii kulul sidii hore. Trump oo digniin ka soo saaray miinooyinka Iiraan ay ku aasayso marinka Hormuz. Maxay yihiin dawladaha Iiraan ay u ogolaatay inay maraan marin biyoodka Hormuz? muxuu yahay farqiga u dhaxeeya hogaamiyaha Iiraan iyo waliba madaxweynaha dalkaasi maxay yihiin shaqooyinkooda iyo waliba waxyaabaha ay u idman yihiin qodobadaasi iyo qodobo kale oo aad u xiiso badan oo xasaasi ah ayaan kugu wadaagi doonaa warbixintani. ciidanka hilaalada kacaanka Iiraan ayaa mar sii horeysay waxa uu iclaamiyay isticmaalka gantaalo madaxa ay wataan oo aad u culus yahay isla markaana aan ka yareyna haltan gaar ahaan duqeymahaasi socda. ماجد الموساوي hogaamiyaha ciidamada ilaalada kacaanka ee cirka ayaa cilaamiyay in duqeymaha ay u geysanayaan mustaqbalka hadafyada bariga dhexe ee Mareykanka iyo waliba Israa'iil ay si weyn u kordhin doonto. wuxuuna intaasi ku diray in madaxyada uu xambaarayo gantaaladooda uu noqonayo mid aad u culus. General Musawi ayaa hore waxa uu sii waadixiyay in ciidanka ilaalada kacaanka ay sii kordhin doonaan weerarada iyo waliba duqeymaha ay ka geysanayaan hadafyada bariga dhexe iyo waliba goobaha istiraatiijiga ah ay leedahay dawladda Israa'iil. wuxuuna sheegay inay diiradda saari doonaan gantaalada xambaaraha madaxa aadka u culus oo ilaa iyo haltan gaaraya ama ka badanba. marxaladan cusub ee dagaalka ayaa waxaa diiradda la saarayay xarumaha iyo waliba goobaha muhiimka ah ee uu leeyahay Mareykanka iyo waliba Israa'iil. Musawi ayaa intaasi waxa uu ku daray in Iiraan ay ku tiirsanaan doonin hadda kadib gantaalada qaada madaxyada yaryar oo markaasi la adeegsanayo kuwa waaweyn si ay u geystaan burbur aad u daran oo weyn gaar ahaan hadafyada istiraatiijiga ah. wuxuuna tilmaamay in la adeegsanayo sawaariikh balaastiig ah oo culus oo awood u leh inuu qaado shixnado qarax oo aad uga xoog badan kuwii hore. khubarada taxliiliya arrimaha ciidanka iyo militariga in gantaalada ay Iiraan adeegsanayso ee balaastiiga ah sida gantaalka Kharamshar uu awood u leeyahay inuu xambaaro madaxyo dagaal oo culeyskiisu gaarayo haltan oo ah 1 kilogram. midan oo suuragelinaysa inuu geysto burbur aad u daran gaar ahaan kaabayaasha ciidanka, xarumaha xasaasiga ah iyo waliba goobaha istiraatiijiga ah. hadalladan ayaa waxay imaanayaan xilli ay mandiqada bariga dhexe uu ka sii socdo dagaalo aan joogsi lahayn kadib markii la isweydaarsaday gantaalo iyo waliba adeegsiga diyaaradaha iswada oo ay adeegsanayso Iiraan iyo waliba kooxaha gacan saar kale leh ee mandiqada. Iiraan ayaa in badan waxay ku celcelisay in jawaabteeda weerar uu mar walba kordhi doono hadiiba ay dareento qatar danaheeda ah iyo waliba quwadaha isbahaysiga la. dadka la socda arrimahan gaar ahaan khubarada dhanka amniga ah ayaa waxay ka digayaan in isticmaalka gantaalada xambaara madaxyada aadka u culus ay dhalinayaan waxyeelo aad u daran. dhanka kale sida uu daabacay Middle East Monitor in Iiraan ay si rasmi ah u siisay wado aamin ah maraakiibta shidaalka ee dawladda Bangladesh iyagoo si nabad ah ku maraya marin biyoodka Hormuz. Bangladesh iyo Iiraan ayaa waxa isaga oo ka soo xiganaya ilo sirdoon oo Mareykan ah in Iiraan ay kordhisay miinooyinka ay ku aasayso marinka Hormuz kaasi oo ah marinka ugu muhiimsan oo isaga kala goosha tamarta adduunka oo 5 meelood hal meel mara. dhanka kale madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu digniin u diray Iiraan isaga oo u sheegay in haddii ay dhigeen miinooyin marin biyoodka Hormuz sabab kasta ha jirtee waa inay ka saaraan ayuu yiri. haddii ay ka saari waayaan inay la kulmi doonaan jawaab military oo aad u daran oo aan hore loo arag. Iiraan marinka Hormuz ayaa waxa ay ku wada aastay miinooyin dhanka badda ah kuwaasi oo markaasi laga hagayo tiknoolajiyad casri ah oo horumarsan oo fogaan ahaan loo maamulayo. caadi ahaan miinooyinka noocan ah ayaa marka la dhigayo waxa la adeegsadaa doonyaha quusa ee degdega oo gujiska ah aadkana u yaryar kuwaasi oo saaran miino badeed. waxayna miinooyinkan dhigaan masaafooyin xadidan oo markaasi ugaarsata maraakiibta dagaal iyo kuwa ganacsi. sidoo kale waxaa loo adeegsadaa gaadiidka badda hoosteeda mara ee gujisyada loo yaqaano ee yaryar ama diyaaradaha iswada ee badda loogu talagalay si ay u qaybiyaan miinooyinkan goobo kala duwan oo ay adag tahay in la gaaro. sidoo kale miinooyinkan ayaa waxa ay diiradda saaraan goobaha istiraatiijiga ah si ay u qalqalgeliyaan isu socodka maraakiibta adeegsanaya badda dusheeda.
miinooyinkan qaar way brograamsan yihiin si ay u qarxaan marka ay soo maraan meesha noocyo xadidan oo maraakiib ah. nidaamkan ayaa waxa uu ku soo kordhinayaa howlgelinta, waxa uuna hoos u dhigayaa khataraha ciidanka badda ee Iiraan. howlgalladan ayaa badanaa waxaa la fuliyaa xilli habeenkii ah ama marka ay jirto duruuf cimilo oo xadidan si loo yareeyo fursadaha lagu ogaan karo raadaarada lagula soconayo badaha caalamiga ah. muxuu yahay farqiga u dhaxeeya hogaamiyaha Iiraan iyo madaxweynaha dalkaasi? mar walba waxaad maqashaa hogaamiyaha sare ee dalka Iiraan iyo madaxweynaha dalka Iiraan. haddaba waxaa muhiim ah inaad kala ogaato mid waliba shaqada uu qabto, qaabka uu u shaqeeyo iyo mas'uuliyadda saaran. aan ku bilownay hogaamiyaha sare ee Iiraan ayaa shaqadiisa waxa ay tahay: marka ugu horeysa, hogaamiyaha sare ayaa waxaa soo doorta golaha hoggaanka khubarada Iiraan, waana hogaamiyaha ugu sareeya ee ciidanka iyo waliba ilaalada kacaanka. wuxuuna magacaabaa hoggaanka hay'adaha xasaasiga ah, wuxuuna awood u leeyahay inuu casilo madaxweynaha Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iiraan ayaa shaqadiisa waxa ay tahay waxaa si toos ah u doorta shacabka, wuxuuna madax u yahay golaha xukuumadda iyo hay'adaha fulinta. waxa uu maamulaa dhaqaalaha dalka iyo shaqooyinka, waxa uuna maamulaa wasaaradaha iyo waliba barnaamijyada xukuumadda. kooxo xiriir la leh Xuutiyiinta Yemen iyo Xisbullah ee Lubnaan ayaa waxay ku hanjabeen inay duqeyn doonaan xarunta nuclearka ee Baraka ee ku taala Abu Dhabi. kooxahan hubeysan oo xiriirka la leh Xisbullah iyo Ansaarullah al-Xuutiyiin ee taabacsan Iiraan ayaa wax isku magacaabay guutooyinka ballanta dhabta ah ee dhulka Jasiiratul Carab, kuwaasi oo ku hanjabay inay weerari doonaan xarunta nuclearka Baraka ee ku taala Abu Dhabi. bayaan ay soo saareen labadan kooxood maalinnimadii Arbacada ayaa waxa ay ku sheegeen inay gudanayaan waajibkooda diiniga ah ee dagaalka islaamka ee markaasi lagula dagaalamayo Yahuudda iyo kuwa taabacsan. waxaana sii wadaynaa ayay yiraahdeen howlgalladeena lagu garaacayo dhufaysyada cadowga ee dhulka Jasiiratul Carab. waxayna sheegeen in hadafkooda xiga uu noqon doono xarunta nuclearka ee Baraka ee markaasi ku taala Abu Dhabi. kooxahan ayaa isku magacaabay guutooyinka ballanta runta ah oo ay markaasi ka mid ah kooxaha Iiraan taageerto oo ka jira gobolka, ayaa waxay fuliyeen howlgallo xuduudaha dhaafay 5 sano kadib tan iyo soo muuqashadoodii ugu horeysay 23kii bishii January ee sanadkii 2021. haddana kooxahani ayaa mar kale waxay soo laabteen iyadoo ay jirto iska hor imaadyo u dhaxeeya Washington, Tehran iyo Tel Aviv. bayaan ay hore u soo saareen kooxahani ayaa waxa ay ku sheegeen iyagoo isku qariyay inay Xuutiyiin yihiin, ayaa waxa ay ku hanjabeen inay beegsadaan danaha Mareykanka iyo waliba safaaradihiisa, kuna beegsadaan gantaalo iyo diyaaradaha iswada, iyaga oo halkaasi ku joojiyay qulqulka shidaalka ee badda cas iyo waliba badda Carabta. bayaankii ugu dambeeyay waxay ku soo saareen magaca Xuutiyiinta iyaga oo u digay inay sii wadi doonaan weerarada ay u geysanayaan maraakiibta maraya badda cas iyo badda Carabta, iyadoo soo tarayo iska hor imaadyada u dhaxeeya Tehran iyo Washington.